maanta oo sabti ah waxaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho oo ka furmo shirka golaha wadatashiga qaran oo looga hadlayo dardargelinta doorashada Soomaaliya oo ka bilaabatay qaybo ka mid ah deegaanada maamul goboleedyada dalka. Shirka waxaa u dhammaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, waxaana shir gudoomin doona ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, iyadoo qorshuhu yahay in goordhow ka furmo teendada Afisyooni ee xeendabka Xalane. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ah hogaamiyaha kaliya ee maqnaa ayaa daqiiqada ka hor ka soo degay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxa uuna toos uga qayb gali doonaa shirka oo goordhow ka furmaya xerada teendada Afisyooni ee Muqdisho. shirka maanta ka furmaya Muqdisho ayaa waxaa looga hadli doonaa 3 qodob oo waaweyn, kuwaas oo kala ah habraaca doorashada, dhaqaalaha iyo amniga goobaha ay doorashada ka dhacayso. qodobka ugu culus waa habraaca doorashada oo ay ku hoos jiraan doodo sheegaya in wax looga bedeli doono heshiiskii 17 bishii Sebtembar ee sanadkii 2020 laga gaaray doorashada Soomaaliya. wararku waxay sheegayaan in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay wadaan soo jeedin ah in tirada ergada la yareeyo iyo in goobaha lagu qabanayo doorashada lagu soo koobo min hal magaalo. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed ayaa shirka ka soo jeedin doona sidaan xog ku helnay in doorashada lagu soo koobo min hal magaalo, iyaga oo sabab uga dhigaya 3 qodob oo kala ah sababa dhaqaalo, mid amni iyo waqtiga oo la baaqaamiyo. balse waxaa jira warar sheegaya in dana kale ay ku hoos duugan yihiin oo xagga beelaha iyo magaalooyinka ka haysta madaxweynayaasha maamul goboleedyada. qodobkan ayaa la filayaa inuu noqdo kan ugu adag, lamana oga sidoo ku guulaysan doono qorshaha madaxda qaar ee wataan oo ah in wax laga bedelo heshiis siyaasadeedkii doorashada Soomaaliya ee 17 bishii Sebtembar ee sanadkii 2020. sida aan ku helay xogo hoose, ilaa hadda beesha caalamka ma bixin lacagtii loogu talagalay kabka doorashada Soomaaliya, waxaana la sheegay in doorashada maamul goboleedyada dalka qaarkood ay u bilaaban la'dahay duruufo dhaqaale, halka qaarka bilowdayna ay u dhammaystirmi la'yihiin sababo dhinaca dhaqaalaha ah. maqnaanshaha lacagta beesha caalamka waxay fududayn kartaa in doorashada lagu soo koobo min hal magaalo, sida ay qabaan dadka la fagura arrimaha siyaasadda Soomaaliya. qodobka 3aad ee shirka looga hadli doono ayaa ah doodda amniga. wararku waxay sheegayaan inaysan jirin culays weyn oo dhanka ammaanka ah goobaha loo qorsheeyay in lagu qabto doorashada Soomaaliya, inkastoo qodobkan uu qayb ka yahay waxyaabaha miiska saaran ee shirka maanta looga hadlayo. madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale falaqeeyaasha arrimaha siyaasadda ayaa qaba in magaalooyinka loo qorsheeyay in lagu qabto doorashada Soomaaliya badankood yihiin kuwa degan oo aanay jirin cabsi xoog leh oo dhanka ammaanka ah, inkastoo ay muhiim tahay in la adkeeyo ammaanka isla markaana ay ciidamadu helaan caawimaad iyo xoojin dhanka ammaanka ah xilliyada doorashada. sida ay sheegeen ila wareedda ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, sidoo kale waxaa laga hadli doonaa fadeexadaha hareeyay doorashadii ka qabsoontay magaalooyinka maamul goboleedyada qaar ee xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo caqabadaha hortaagan qabashada doorashada aqalka sare ee deegaanada maamulka Hirshabeelle. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa la filayaa in shirka uu ka sameeyo soo jeedin ku aadan culays ka haysta magaalada Beledweyne iyo duruufo dhaqaale kuwaasoo ku horgudban bilaabidda ama qabsoomidda doorashada aqalka sare ee deegaanada maamulkaas. Cali Guudlaawe wuxuu madaxda ka qaybgalaysa shirka u sharaxi doonaa dhibaatooyinka magaalada Beledweyne oo muddooyinkii ugu dambeeyay soo laba kacleeyay, kuwaasoo la aaminsan yahay inay yihiin caqabadda ugu weyn oo ilaa hadda u dhaqaaqi laadaha doorashada maamulka Hirshabeelle ee xubnaha aqalka sare.